saddexda factor oo nolosha ugu muhiimsan mid kamid ah waa hoyga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabtu waa islaamiga waa saaxiibkiin ma ahna wadalle isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waxa uga hadli doonaa arrin wax badan ay ka soo codsateen oo ah guryaha Turkiga iyo yurtooyinka iyo qaabka ay waxyaabaha guryaha u kala baxaan. insha Allah muuqaalkan waxaan rajaynayaa wax badan ka faa'iido doontiin kuma sii fogaanayno faahfaahin dheer. intaan muuqaalku guud galin haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar ku soo bir channelka insha Allah waxa ka hadli doonaa muuqaalo ama barnaamijyo badan oo ku saabsan dalka Turkiga. haddii aad joogtid wadankan iyo haddii aad soo socotidba way ku anfici doonaan waxyaabahaas aan ka hadli doono. dalka Turkiga sida ogtiinba waxa waaye sanadada ugu dambeysay Soomaali badan ay imaanaysay ama Soomaali kaliya ma ahan ajaanib badan ay imaanaysay. waa saddexda factor oo nolosha ugu muhiimsan mid kamid ah waa hoyga. marka hoyga aragna in maanta si fiican uga hadalno marka aan wardi ku daalin muuqaalku guud galno waxa ugu horeeyo oo macnaha arday ahaan markii la dhaho ugu horeeyo ardayda ay degaan oo aan ugu hadli doono muuqaalkan waa yurtooyinka. yurto waa erey Turki ah wuxuu u dhigmaa English ahaan waxa lagu dhahaa dormitory ama leena dormitory in lagu dhaho af Soomaali ahaan waa hoy macnaha caadi loo sii kareenayo hotel ma aha laakiin hotel amal way laakiin qaabka hotelka u shaqeeyaan waa yurto. yurtooyinka waxyaabaha ugu badan ay maqli doonto waa wadanka marka ay maatid hebel yurto degan yahay yurtaan soo guuray yurtaa deganaa jiray yurtaa degriba waxyaaba badan ay maqli doontid yurtadaas in badan waa maqli doontaa. marka yurto maxaa tahay yurtooy maxaa tahay yurtada waxa waaye guri caadi oo la dego oo dadka ay degaan oo macnaha ardada badan ay degaan dadka waxbarashada ku jiro. marka yurtadu waxay leedahay qaarkood gabdhi wiilal oo kala saaran yihiin oo macnaha qaybna gabdhaha qaybna wiilasha gaar u tahay oo macnaha waa hal yurto oo macnaha kala qaybsan ama hal building oo 30 biyaan camal ka kooban oo laba qaybood kala leh gabdhahan hal meel ay ka galaan wiilashan hal meel. waxa sidoo kale jiro yurtooyin gabdhaha bis u gaar ah iyo kuwa wiilasha bis u gaar ah oo wax wiil oo san galeyn wax gabarna tan aysan soo galeyn. marka sidaa darteed yurtada waa wax muhiim ah oo ardada badan ay degaan markii dalkan Turkiga ay noqoto wayna kala duwan yihiin yurtooyinka qiimahooda markii la dhahay magaalada Istanbul, Ankara iyo Izmir magaalooyinka Turkiga ugu weyn sidoo kale gobolada waxay ku xiran tahay meesha ay ku taal yurtadaas ama magaalada aad yurto ka degi rabtid. yurtooyinka waxay u kala baxaan sida ay sheegay gabdhi iyo wiilal qaarkoodna waa hal building oo laba qaybood gabdhi iyo wiilal si kala baxay. marka yurtada badan yurtooyinka oo dalka Turkiga waxay leeyihiin quraac iyo casho. quraac subaxii adi 4 saac ama 3 saac sida u taqaaniin ama 9 subaxnimo la cunaa quraac. cashadana sidoo kale maqribkii cishaa inta u dhaxayso ayadana la cunaa ama 8 habeenimo sida u taqaaniinba badan waxay ku xiran tahay cuntooyinka. haddii cunto aadan ka cunayn yurtada oo kaliya aad degaysid qiimaheedu wuu hooseeyaa oo wuu yaryahay waxaa laga yaabaa 400 ilaa 500 inaad bishii ku deganaatid. haddii ay cunto ku jirtana waxaa laga yaabaa inaad ku deganaatid 600 ilaa 800 ilaa 1000 inta u dhaxayso oo bishii aad ku deganaatid. way adag tahay yurto 1000 ka badan inaad aragtid oo haddii aysan miilkeeda ama cuntada ku xiran tahay badanaa iyo meesha ay ku taalo. haddii yurtada ay u dhowdahay meel train laga raaco ama boosteejo train qiimaheedu kor oo noqon doona ama oo ziyaadi doona. sidoo kale haddii waxyaaba ay bixiso oo dheeraadka ama facilitieska waxyaaba ay macnaha yurtooyin kale ay dheer tahay way ugu sii qiimo doonaan kartaa ama qiimaheedu ka sareyn karaa yurtooyin kale. marka yurteedu ku sii daalin warkeeda kuwa gobolada zaid raqiis u yihiin waxa laga yaabaa in adoo quraac iyo casho helayo aad ku deganaatid 600 hotel oo u dhiganto adii lacag $100 ka yara $80 camal ah inaad ku deganaatid laga yaabaa. qaarkoodna kuwa Ankara ku yaalo kaleeto ayagana sidoo kaleeto Ankara gobolada iyo Ankara wax yar ee macnaha qiimaha kala duwan yihiin. inkastoo Ankara ay tahay caasimadii oo yurtada gobolada xoogayar ay qiimaha ka sareyso. marka yurtana waa kaasa haddii wax faahfaahin oo dheer ugu baahan tahay insha Allah website aad sheegi doona oo aad waxa soo dhan ka baari doontiin qaybta dambe muuqaalka ku sheegi doona website-kaas. sidoo kaleeto wadankan waxaa jiro waxa la dhaho laba kireyn ama qof Soomaali inuu guri kireysto oo kadibna sariirkaasi kireeyo ama sariir oo gurigaas uu kala kireeyo. badanaa waxay ku badan tahay arintan magaalooyinka weyn sida Ankara iyo Istanbul gobolada badanaa saas ma ku arkin. gobolada ardayda joogta ardadana badanaa yurtay degan laakiin magaalooyinka waxay ugu badan tahay waxa jooga dad badan oo ama ha ahaadaan dad hore u sii socdo oo safar wadankan ka tahriibi waxa soo socdo ama dad wax yar jooga caafimaad ahaan loo keeno wadankan ama dad dibadda ka imaaday oo wax yar inay joogaan rabo wadankan hotelna aan ka baxsan karin ayaa jiro. marka dadkaas oo kaleeto waxay heli karaan
dad Soomaaliya waxa jira guri kireysanayo oo kadibna gurigaas adiga ka sii kireynaayo sariir u sii kala kireynayo waa fahmi kartiin oo maleynaya kadib sariir marka laga kireeyo oo sariirtaas waxa laga yaabaa in $100 bish laga qaado cuntadadan adiga guriga ku karsatid ama asxaabta guriga degan ku darsatid oo guriga ayadana sidoo kale laga kireeyay markaas adiga laga rabo gas iyo koronto iyo internet iyo waxaas oo shaqo ma kulihid qofka guriga kireeyay oo mas'uulka ka ah Soomaali ha ama qof kale oo ajnabi ha qofkaas laga rabaa adiga waxa laga rabaa kaliya qolkaas door in iska dhiibatid kadib sariirtaada iska degnaatid ayagana way jiraan kuwa ka sii qiimo badan lacagtaas oo badanaa waxay ku xiran tahay meesha guriga ku yaalo ilaa $120 ilaa $150 guriga lagu digaa Istanbul iyo Ankara iyo magaalooyinka kale waaweyn badanaa gobolada kuma arkin waxaas qaabka kale oo guri loo dago waxa waaye guriga inaad kireysatiin tusaalahan waxaad tihiin arday afar ah oo yaqaano ama yurta isla degan waxaad samayn kartiin inaad soo baxdiin oo hal bil aad dhagaha isqabatiin waxaad kireysan kartiin guri caadi oo macnaha guriga markii la kireynayo 3 lacag ka bixayso lacagna imlaaqa ka qaadanayo oo real estate ka lacagna waxa ka rabo lacagna deposit ahaan meel laga dhigayo oo macnaha hadii guriga waxa ka jibisid hadhow lagu sameynayo hadii guriga marka guritin lacagtaas waa lagu soo celin doonaa lacag saddexaadna waxay tahay waa bishi kirada koowaad marka saddexdaas lacag laga rabaa soolaan hadii guriga kun teela yahay 3,000 oo teela bishi koowaad laga rabaa kadibna wixii ka dambeeya kun kaas teela adii asxaabtaada isla qaybsan doontiin gurigaasna si nadiif ah ugu wada noolaa doontiin oo nidaam leh marka sidaasna way jirtaa oo ardada badanaa sameeyso iyo dadka asxaabta dadka xataa tahriibka u socday waxyaabahaas oo dhan way sameeyaan saas macnaha qof 4 qof ama 5 qof ama 6 qof oo isfahansan daatiin guriga caadi u kireysanaysiin inkastoo guri markii la kireysanayo iska adag tahay in la helo oo badanaa ajaanibta guri loo moongale ku dhaan oo macnaha inkastoo la heli karo laakiin cambaarina raadisi ku qaadanaysaa hadii aad iqaamaha haysidna dhimada iqaamada lagu qoraa lagu saxiixa marka way fududahay sidoo kale oo arday badan hadaatiin guri ina kireysatiin guri in la kireysanayo waa kaasa waa qodob saddexaad qodobka afraad oo macnaha guriyeenta oo Turkiga waa inaad guri caadi toos u iibsatid guri marka caadi toos u iibsanaysid waxa waaye waa qiimihiisu badan yahay laakiin waa qaab saddexaad oo badanaa dadka inta ugu nool yihiin Soomaalida badanaa inta family ahaan u nool waxa waaye guriga gateen apartment iyo kale taa gadanaysa kadibna waa kaasa meesha ku noolanaysa wax kira laga rabo marka guriyaha la gadanayna ayagana sidoo kale waxa waaye wadankan raqiis ka yihiin waa gadan kartiin guri oo maxay wax saas si badan ma markii wadamada kale loo fiiriyo hadii aad guri gadatid waxa laga yaabaa in viisooyin badan ay heshid muuqaalada hore oo ku sheegay in adii ugu yaraan 6 viiso kale ay heshid si macnaha dadka gurigan soo degi lahaay meesha ay joogaan ay ugu keentid walow kana wadankii ahaato ama meel kale ahaato si macnaha wadankan ku imaadaan viisaashaas la siiyaa kadibna gurigaas marka aad gadatid waxa laga yaabaa adii guriga qiimihiisa oo ka badan yahay $250,000 haduu qiimihiisa ka badan yahay ama $250 oo $250,000 oo yahay waxa laga yaabaa in dadka gurigaas soo degi doono ay wada citizen Turkish ama muwaadiniin Turki ay noqdaan ay passport wada qaataan marka wixii ka hooseeya laakiin passport lagu dhiibo insha Allah muuqaalka soo socdana waxa uu hadli doonaa ardayga inta ku filan iyo familiga inta ku filan uu hadli doonaa muuqaalka soo socdo si aan muuqaalkaas ku dhaafin channelka soo biir subscribe share oo gamalaalka furosi macna muuqaalkaas marka soo geliya adigana sidoo kale taa u aragtid hadii aad taqaanid asxaab xiiseynayso muuqaalada sidaan oo kale u share garay marka yana warkeeda ku daal muuqaalkeen intaas ku eegyahay inta muuqaalka xiga kulmi doono dhamaantiin waxa iga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo peace